بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. دمان أرديدا كسو بيرتي أكاديمية تنان تريدرز اندستري. مركا كواد حندكو سلام يا سلامة إسلامك، السلام عليكم. سلام كبعدي waxaan rabaa inaan idin dhaho soo dhawaada. waxaan rabaa inaan idin dhaho ku soo dhawaada maqaamkii ama positionkii isbedelka goobtii horumarka iyo goobtii guusha. maxadkan qof walba uu ku soo biiray oo idin ka mid ah waqti buu soo huray, dhaqaaluu soo huray. waxa haddaba muhiim ah qof walba waqtigii uu soo huray iyo go'aankuu soo qaatay inuu uga miro dhaliyo sida ugu wanaagsan, ugu quruxda badan, ugu dadaalka badan. dhammaantiin ardayda waxaan kula dardaarmayaa inaad dadaashaan, waqti gelisaan waxaanaad baranaysaan. xaqiiqatan forex wuu fudud yahay, laakiin yuu u fudud yahay? Wuxuu u fudud yahay ardayga dadaala oo wax barta oo xirfaddii sida ugu saxsaneed u raadiya buu u fudud yahay. dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa inaad guulaysataan. dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa inaad forex guulka gaadhaan. hadafka aad meeshaan u timaadeen oo u soo doorateen tanaadna inaad ka heshaan baan idin rajaynayaa dhammaantiin. akaademiyaddu way dadaashay inta karaankeeda, waxayna u dadaashay ardayda Soomaaliyeed inay guul gaaraan, inay suuqaan lagu sirmay oo muxuu ahaay dad badan dhaqaalahoodii ku waayeen, dad badan dhaqaalahoodii lagaga lunsaday, in ay sirta suuqa kan sida ugu wanaagsan ay u helaan baan waqti gelinay. waxaan rajaynayaa casharadana say tahay haddaa u barataan, waqti aad gelisaan adiga iyo kombiyuutarku waqti badan aad isla qaadataan, inaad ka guulaysanaysaan wax badan baan horta idin ballan qaadayaa, idinkana rajaynayaa Ilaahay subxaana wa tacaala. maanta waxaynu bilaabanaynaa casharkeennii koowaad. waxaan rajaynayaa mid arday walba inuu farxad ku bilowdo casharka koowaad, farxadna uu ku dhammaysto, inuuna ka caajisin dadaalka uu maanta bilaabayna inuu ku dhammaysto farxad iyo guulo waaweyn uu ku gaaro baan u rajaynayaa insha Allah. qof walbi isbedelka uu ku hamiyaa, laakiin waxa yar inta kaga dhabaysa, waxa aad u yar oo qaliila inta kaga dhabaysa. waxaan aaminsanahay ardayda akaademiyadan soo gashay dhammaantood inaysan ka midha dhalin doonin hadafka ay meeshan u yimaadeen. waxa ka midha dhalin doona oo keliya qofka dadaalaya, qofka waqti bixinaya, qofka mar kasta waxa weeye macalinka su'aal soo weydiinaya, qofka mar walba wax taxliilinaya, qofka mar walba ardayda wax kala qayb qaadanaya. maanta casharkeennii koowaad baynu qaadan doonaa insha Allah. casharkan waxaan rabnaa inaan horta idinkaga haqabtiro insha Allah fikradda guud aa ka haysataan muxuu yahay forex. in badan waxaa laga yaabaa inaad maqasheen forex, masaaxiibkaa baa ka maqashay, social media ka aragtay, YouTube baa ka daawatay, macallin kalaa ka aragtay, meelo kalaa ka maqashay, xafiisyo meelaha qaar ka furan baa aragtay, dad wax baraya aragtay, horaa laga yaabaa inaa ugu soo jirtay muddo badan aa waqti soo gelisay. waxaan rabaa guud ahaan inaan maanta isla fahanno horta muxuu yahay forex trading. forex waa xirfad lacagaha qalaad lagu kala bedelo. waxaa la yidhaahdaa waa foreign exchange, waa sarifka lacagaha qalaad. forex waa maxay? waa sarifka lacagaha qalaad. okay, waa maxay forex? forex it means waxa weeye foreign exchange. forex baalka inoogu qoran, fortu waxay u taagan tahay foreign, exchange-guna waxay u taagan tahay x-tuna waxay u taagan tahay exchange. it means foreign exchange. foreign exchange marka macnaha af Soomaali ahaan ugu dhow oo lagu qeexi karaa wuxuu noqonayaa isku beddelka lacagaha qalaad. it means waa sarif, waxbaa sarifaysaa, lacagaa sarifaysaa. waxaad sarifaysaa
for example waxaa sarrifaysaa lacagta euroda waxaa ku bedelaysaa lacagta dollarka ama USD dollar waa ku bedelaysaa dhexdooda marka khidmad ka faa'iideysaa sida sariflaheena caadiga ah ee suuqyada lacagaha Soomaaliga iyo dollarka isugu keen bedela oo isaguna lacagaha qalaad isku bedelaya lacagaha dawladaha kala duwan baa isku bedelaysaa qaab online ah baa ku kala bedelaysaa lacagahaas marka aad euro ku bedesho USD baad dhexdooda waxa ka helaysaa faa'iido ama khidmad ka faa'iideysaa haddii lacagtii aad ku lacagta for example dollarka marka qiimihiisu jaban yahay oo qiimihiisu hooseeyo dhulka yaallo baan soo iibsanayaa marka qiimihiisu kacohna waa iska iibinayaa si aan faa'iido uga helo aad bay u fududahay baan u malaynayaa dollarka marka qiimihiisu jaban yahay oo dhulka yaallo waa soo iibsanayaa marka qiimihiisu kacona waa iska iibinayaa si aan faa'iido u helo ya waa ganacsiga caadiga oo kale qofku markuu badeecad soo gato badeecada lacag yar buu ku soo iibsadaa hadhowna muxuu ku iibsadaa lacag yar buu saarsadaa sarifkuna it means waa dollarkan soo iibsanayaa marka uu qiimihiisu hooseeyo markuu qiimihiisu kacona waa iska iibinayaa okay suuqan haddaba forex trading online ahaan baa uga shaqaysanaysaa waxaana uu furan yahay 24 saacadood ee 5 maalmood ee shaqada 5 maalmood ee shaqada waxaan ka wadaa maalinta sabtida iyo maalinta axadda suuqu uu xidhan yahay oo bangiyada xidhan adduunka xidhan bangiyada adduunku maadaama ay xidhan yihiin dee dadkii lacagahooda suuqan gelinayay baa ka maqan it means forex trading wuu xiran yahay lagama shaqaysto labada maalmood laakiin 5 maalmood oo kale isniin salaasa arbaca khamiis iyo jimce 5 maalmood 24 saacadoodba waa ka shaqaysan kartaa it means daqiiqad walba iyo saacad walba ee 5 maalmood lacag baa ka samayn kartaa okay suuqan waxa lagu kala bedeshaa lacag gaaraysa 6 trilyan oo dollar waa every single day macnaha maalin kasta suuqan waxa lagu kala bedeshaa lacag gaaraysa 6 trilyan oo dollar 6 trilyan oo dollar baa lagu kala bedeshaa 6 trilyan waa lacag aad u badan qeyr ilxada bal ka waran maalinkii 6 trilyan oo dollar oo forex dhex maraysa intee in leeg baa ka faa'iidi kartaa adigu intee in leeg baa ka faa'iidi kartaa rag baa maalinkii kumanaan ka faa'iida kuwa boqolaal ka faa'iida kuwa waxa weeye millions of dollars ka faa'iida waa adiga iyo xirfadaada waa adiga iyo waqtiga aad geliso waa adiga iyo inta aad suuqan ka shaqaysato waa adiga iyo xirfadu inta ay leegtahay aad barato saaxiibayaal haddaba suuqan forex tradingka waxaa ka qayb qaata oo lacagahooda gashta dadyow kala duwan 6 trilyan oo dollar xagee ka timi 6 trilyan oo dollar waxay ka kala timaadaa meelo kala duwan haddaba suuqan waxaa ka qayb qaata oo dhaqdhaqaajiyo lacagahooda ka qayb qaata number 1 horta waa dawladaha adduunyada lacagahooday geliyaan inta badan si ay dhaqaalaha waddankooda ugu balance gareeyaan waxaa ka qayb qaata bangiyada dawladaha central bankska dawladaha baa iyaguna suuqan lacagahooda gashada si ay lacag uga faa'iidaan waxaa ka qayb qaata bangiyada gaarka loo leeyahay sida bangiyadeena dee Soomaaliya ku yaala Premier Bank iyo dahabshiil iyo Salama Bank iyo bangiyadaasaa ka qayb qaata bangiyada gaarka loo leeyahay baa ka qayb qaata lacagahooda gashada waxa gashada oo kale oo suuqa ka qayb qaata xirfad-yaqaanadu waa dadka suuqan bartay sida adiga iyo aniga oo kale iyo dad hatcheries loo yaqaano oo 25 ama 30 years oo experience ya forex u leh oo 30 sano suuqan ku dhex jiray 25 sano suuqan ku dhex jiray oo maxay tahay qoobkay qaadaba u soo joogay oo suuqan si wanaagsan u yaqaana oo lacag fiican ka samayn kara baa jira raggaasi marka waxay u shaqeeyaan dawladaha ama bangiyada dawladaha ama bangiyada gaarka loo leeyahay baa soo kiraysta raggaa lacag baa la siiyaa si waxaa loo dhiibaa millions ama billions of dollars baa loo dhiibaa waxaa la yidhahdaa ku shaqee qofkaas marka maxaa la hubaa inuu faa'iido lacagtan ka samaynayaa la hubaa hadhowna khidmadiisaa la siiyaa waa xirfadlayaal marka maxaa ka mid a dadka lacagahooda gashanaya lacagaha yaryar dadka gashanaya sideena oo kale oo kumanaanka iyo boqolaalka dollar inagu waa gashanaynaa soo maaha xirfadlayaal bay noqonaynaa goormaynu gashanaynaa markaynu suuqan baranno baynu si xor uga shaqaysanaynaa iyadoo aan magaranaysaa cidina aynaan u daba fadhiisanayn baynu maalin kasta lacag ka samaynaynaa okay waxaa ka mid a marka shirkadaha caadiga ah sida shirkadaha Facebook iyo Apple iyo shirkadahaas oo dhan baa iyaguna ka mid a oo suuqan lacagahooda gashta haddaba su-aasha isweydiinta leh mudani waxay tahay maxaan u baahanahay si aan suuqan uga shaqaysto
dadka qaar ee Soomaalida ah suuqan waxay ka aamineen shirkad ama beryahan dambe Soomaaliya waxaa ku soo batay shirkado dadka lacaga ka qabanaya oo ugu shaqaynaya. Shirkado dadka lacaga ka qabanaya ugu shaqaynaya. Kuwaasaa Forex loo bixiyay marka. Qofkii wuxuu aaminay Forex-ka dhanba inuu yahay shirkadahaas. Aan la'aantood shirkadahaas Forex lacag laga samaysan karin. Kaliya inay tahay inaad lacag kaash qaado, qof u geyso ama shirkad Forex baan ku shaqaynaa tiri u geyso oo tiraahdo igu shaqeeya. Forex magacaasaa loo bixiyay marka. That shirkadaasi waa Forex. No, marka shirkadaas Forex maaha. Forex waa lacagta aynu soo sheegnay foreign exchange-ga 24 saac ee 5 maalmood ee shaqada furan lagu kala beddesho 60 trilyan oo dollar dadka intaa le'eg ay ka qayb qaataan halkaasaa Forex la yiraahdaa. Haddaba maxaad u baahan tahay si aad Forex uga shaqaysato adigoo aan hal qof u daba fadhiisan, adigoo aan cidina aanan adiga iyo suuqan idin dhaxayn sidee baa uga shaqaysan kartaa? Waxaa uga shaqaysan kartaa u baahan tahay kaliya waxa koowaad waxa weeye xirfadda. Ha ku degdegin, xirfadda baro. Suuqan waana lagu faa'iidi karaa waana lagu khasaari karaa. Si la mid ah sida lacag looga samayn karo baa lacag looga khasaari karaa. Haddaba goormaad ka badbaadaysaa inaad khasaarto? Waa marka aad xirfaddii barato. Waa marka aad sirta suuqan barato. Kow maxaa u baahan tahay baan nidhi si aad Forex adoo kaliya uga shaqaysato? Xirfadda. Maxaa ku xiga? Inaad haysato mobile, smartphone oo mobiladan casriga ah inaad mobile ka haysato. Kow maxaa ku xiga? Inaad computer ama laptop haysato. 3 maxay tahay? Inaad haysato internet inaad haysato. 4 waa xirfaddii, waa mobile, waa computer, waa xirfadda. 4taa wax haddii aad isla hesho lacag adiga lacag waa istaqaaniin. Adiga iyo lacagi waa istaqaaniin saaxiib. Haddaba dadku maxay tahay wax aysan hubin inay ku faa'iidi doonaan ama ay ku khasaari doonaan bay dhaqaale geliyaan. For example maanta waxa furatay baan tiri waxa furanaya supermarket. Dhaqaale fara badan baa gelisay, decoration fara badan baa gelisay, lacag badan baa meeshii gelisay. Suuqa ma hubtid inaad ku khasaari doontid iyo inaad ku faa'iidi doontid. Inuu guban doono oo dab haleeli doono iyo in kale ma hubtid. Laakiin Forex-ka waxa hubtaa haddii aad xirfadda barato, waxa hubtaa inaad faa'iido samaynaysid baa hubtaa. Haddaba xagee baa mudan in la maalgashado? Xagee baa mudan? Waxa mudan in la maalgashado oo dhaqaale lagu bixiyo meeshii la hubo in wax laga helayo waa mudan 100%. Waana meesha kaliya aan kula talinayo qof walba oo dhalinyaro ah oo Soomaali oo bilaa camal ah. Waa sirta kaliya aan kula talinayo Forex barto. Hadduu Forex barto cidna uma baahna. Forex waxyaalaha uunan meel la kula dhignayn waxaa ka mid ah. Kow adigaa boss isu ah, adigaa maamule isku ah. Shaqo cid kugu maamuli mayso. Gurigaaga ku dhex shaqaysanaysaa. Xilligaa doontaa shaqaysanaysaa. Adigaa fasaxiisa siinaya. Waxaad sanad shaqaysan lahayd. Rag baa waxay sanad ku noolaan lahayn hal maalin shaqaysta. Rag Soomaali ah baa boqolaal kun oo dollar sameeya usbuucii. Marka meeshan waa meel mudan in loo soo degdego. Waa meel mudan in waqti la geliyo. Waa meel mudan in loo soo jabo. Waa meel mudan in loo soo dhabar adeego. Waa meel mudan in dhaqaale la geliyo saaxiibayaal. Haddaba meesha aad magaranaysa waxyaalaha waxa la yiri gumaysi maxaa ka haray? Gumaysi adduunyada la isku maysto maxaa ka haray? Gumaysi waxaa ka haray in shaqaale la isku noqdo. Maanta qof walba wuxuu ka cararayaa inuu shaqaale noqdo. Waxa passive income ama lacag aan caadi ahayn ka samayn kartaa adigoo aanan cidna u shaqaynin Forex weeye. Fasax baa isa siin kartaa, meesha doontaa aadi kartaa, xilligaa doontaa bixi kartaa, xilligaa doontaa shaqaysan kartaa, lacagtaa doontaa samaysan kartaa. Yaa hela. Qof nasiib leh baa hela saaxiibayaal. Marka waxaan idinkula talinayaa haddiiba Ilaahay idin soo siiyay maanta inaad maxay tahay guushan ama xirfaddan aad ka wada qayb qaadataan inaad ka faa'iidaysataan suuqan. Inaad suuqan ka faa'iidaysataan oo xirfaddan aad barataan oo sida ay tahay u barataan. Iskuna xidhnaano insha Allah casharadana aad sida ugu wanaagsan u dhamaysataan. Tool-kana arkaysaan aan hadda shaashada idinka muuqda ama xarxariijimaha aad arkaysaan waa suuqi weeye, waa Forex-ka lagu sheegay weeye. Waa Forex-kii lagu sheegay weeye. Markasta oo suuqu kor u kaco it means buy buu sameeyay oo waxa laga rabaa lacagta inaan buy galo. Marka uu hoos u kaco maxaa rabaa inaan sell u galo lacagtaas. Okay, haddaba saaxiibayaal
casharadan iyo casharo ka badan ka faahfaahsan xogo badan oo macluumaad fara badan oo sir ah xambaarsan insha Allah waxa weeye waa idinla wadaagi doonaa insha Allah casharadeenna dambe la socdo daawada waqti geliya waana salaamantiin. Salaamu calaykum.